وتعالى أعلم. جزاك الله خير الجزاء. لحدن إيو سيديداد سائل كان شيخنا وحولي هاي qof aan daahir ahayn haddii uu arko kitaabka qur-aanka oo dhulka yaala ama meel qashina ku dhex jira ma ka dhex qaadi karaa? kutubta qur-aanka ah ma la gubi karaa ama ma la aasi karaa haddii looga boqo in ay dayacmaan? بسم الله لaba qaybood bay su'aashu ka kooban tahay. qaybta hore ku saabsan kitaabka qur-aanka oo meel dayacan ama wasakh ah ama qashin dhex yaala ruuxan daahir ma qaadi karaa? waa waajib inuu qaado kitaabka qur-aanka uu meesha ka qaado oo kitaabka uu xurmeeyo oo uu karaameeyo. bal bacdu almaalikiya waxay yidhaahdeen haddaad kitaabka qur-aanka oo meel dayacan iyo qashin iyo saxaro iyo wax uskaga dhex yaala aad ka tagto waad gaaloobaysaa adoo qaadi kara. haddaadan qaadin waad ku gaaloobaysaa bay istaageen. markii weysadii ninkan weyse qabin ama aan daahirka ahayn ama gabadha muslimadda daahirka ahayn kitaabkii oo dayacan inay badbaadiso oo ay xurmayso waajib ay ku tahay. hadday weyse laga gaadhsiin karana waa khayr, haddii la gabagabaystana waa khayr. hadday labadaba suuro geli waayaan kitaabka halkaa lagaga tegi maayo, waa in la badbaadiyo si looga badbaado gaalnimada ay culimmadu sheegeen. khayr allah siiye. qaybta ku saabsan kitaabka qur-aanka ma la duugi karaa ama ma la guubi karaa asagoo looga jeedo in la ilaaliyo la dhowro? haa, way bannaan tahay. kitaabka in loo doogo quursi ama loo gubo quursi baa la diidan yahay. asaga in la ilaaliyo oo xurmadiisa la dhowro oo dayaca laga ilaaliyo waa loo gubi karaa biijmaaci salaf saalix, waana masale aan khilaaf lahayn fi taabiciina wa fi saxaaba. wadaadda dambe oo mutaakhirna warka keenay waa jiraan, laakiin salafku iskumaysan khilaafin. sidaas weeye sawaabku. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. جزاك الله خير.